taariikhda markaa 2018 shirkadda Juul ayaa ahayd mid qiimo ahaan gaadhaysay $38 bilyan ayadoona shirkaddan ay ahayd shirkadda vape ama nooca sigaar elektriga ee ugu weyn dunida halka sababta ugu weyn ee shirkaddan loo aasaasay ahayd oo kaliya sidii loo badbaadin lahaa balaayinta qof ee cabta sigaarka loona yareyn lahaa dhibaatada halista badan ee uu keenaya cabida qiiqaas iyo weliba maadooyinka halista badan ee ku jira waxay haataba laakiin isla 5 sano gudaheedba waxaa dhacday in shirkaddan ay khasaartay in ka badan 95% ayadoona la kulantay khasaaradii ugu weyneed abid kadib markii ay shirkaddan bilowday inay aasaasto jiil hor leh oo weliba smokerisa ayagoona malaayiin caruur ka dhigay kuwa la qabatay macabida productigoodan halista ah haddaba sidee laba wiil oo arday ku bedeleen guud ahaan caalamka tubaakada ayagoona dunida oo dhan bilaabay inay ku soo xirigeliyaan beentaasoo ugu dambeyntii sababtay inay haligtay malaayiin ruux haddaba igula soo dhawo muuqaalkan waalida ee ku saabsan shirkadda dunida gilkisha ee Juul iyo mideeda kale maxay tahay sababta ugu weyn ee loo sameeyay e-cigaretka waa maxay waxay ka qarinayaan shirkadahan tubaakadu Children's Hospital in Wisconsin is sounding an alarm about serious health problems linked to vaping. haddaba hal mar aan idinka dabageyay horta waxaan ay tahay Vapetu iyo weliba sidaa ku soo bilaamatay fikraddan Vapeta ay laga dhaadhiciyay inay ka duwan tahay sigaarka waqtiyadii hore waxaa dhacaysay in dadku ay cabaan sigaarka weliba si xad ka baxa ayadoona wargeysyada qaar ay sheegaanba in dadiyowga caalamka lagu tiriyay 8 bilyan ay 1 bilyan oo ka mid ah ay cabaanba sigaarka haddaynan ka badnaynba laakiin kadib markii ay bateen dadiyowga u dhimanayay kansarka ay ka qaadayeen cabidda sigaaradan haddaba waxaa dhacday in markan kambaniyadii soo saarayay sigaarada ay bilaabaan inay la yimaadaan qorshe kale oo ay ganacsigoodii hore ugu sii wadanayaan kadib markii ay ogaadeen in dadyow badan ay u dhimanayaan sigaaradan ay soo saarayaan awgii isla markaasna ay kastamaro badan luminayaan kuwaasoona kala sii laabanayeen kalsoonidooda shirkadahan waana markii ay shirkadahan bilaabeen inay maalgashaan shirkadaha Vapeta si ay isla markaas u badbaadiyaan ganacsiyadoodan haddaba shirkadahaas waxaa ka mid ah shirkaddan aan maanta muuqaalkeena uga hadli doono ee lagu magacaabo Juul taasoona ah shirkadda vape ee ugu weyn dunida ayadoona shirkaddan ay maalgelin ka heshay shirkadda lagu magacaabo Marlboro oo ah shirkadda sigaar ee ugu weyn dunida sanadadii la soo dhaafayay taasoona 2018 ku maalgelisay shirkadda Juul lacag gaadhaysa $12.8 bilyan taariikhda markaa 2004 waxaa dhacday in laba arday oo dhiganaya jaamacadda Stanford University oo lagu kala magacaabayay Adam Bowman iyo James Moses ay waqtigaas bilaabaan ku fikirday inay bedelaan guud ahaan caalamkii smokinga haddaba labadan arday ayaa waqtigaas ah kuwa ku saaxiibay cabidda sigaarka oo ay si wada jir u cabi jireen waqtiyada break time-ka maadaama ay cabidda sigaarka aad u jeclaayeenna waxaa dhacday in markan ay labadan arday go'aansadaanba bal ka waran haddii aan wax ka bedelno guud ahaan sigaarka isla markaasna aan ka dhigno nooc la xidhiidha teknolojiga maadaama noocan sigaar uu soo jiray qarniyo badan sidoo kalena ay dadku ka daaleen ayagoona sidoo kale waqtigaas ku baraarugeen sababaha dadyowga aysan u dhaafi karin cabidda sigaarka walow ay ogyihiin dhibaatada iyo waxa uu sababi kara ay tahay farxadda yar iyo dopamine-ka yar ay ka helayaan cabidda kadib taasoona ka dhigaysa inaysan marnaba dhaafi karin si walba ay iskugu dayaan haddaba Adam iyo James ayaa markan bilaabay inay dhisaan gareeyaan product cusub oo qaabka sigaarka oo kale ah kaasoona leh maadooyinka laga helay sigaarka balse ay dhanka kale ka saarayaan waxyaabihii halista lahaa ee uu lahaa sigaarku sida yaataba kadib markii ay Adam iyo James bilaabeen researchkoodii waxaa dhacday inay markiiba soo daafidaan arrin la yaab leh arrinkaasoo ah in shirkadaha sigaarku ay qarinayaan arrin aad u weyn kaasoona lagu soo saari karay sigaar weliba noocan dhibaato keenaynin oo sirtan ayay ahaayeen shirkadaha sigaarka ku qariya waxay haataba shirkadahan sigaarka ayaa ahaa kuwa ogaa in la soo saari karo nooc sigaar kaasoona leh dhammaan waxyaabaha sigaarada kale ay leeyihiin laakiin aan sababi karin wax kansar iyo weliba cudurrada kale ee halista badan ee laga qaada sigaarka noocaas sigaaroona ah in tubaakada ku jirta sigaarka laga dhiga mid uumi ah halka caadi ahaan la gubo sidaas darteedna uu halista qiiqu meesha ka baxo ilaan halistaba waxaa keenaya maadaama tubaakada ku jirta sigaarka la gubayo sidaasna qiiqa ka soo baxa uu qofkii si toos ugu gudbayo laakiin shirkadahan ayaa gebi ahaanba arrinkaas diiday iyo weliba soo daafiyadaas noocaas bararagtay isla markaasna aan lahayn saameyn aad u weyn ayagoona aaminsanaa in noocan sigaar ee halistiisu yar tahay uuba gebi ahaanba suuq la'aan ku ridi doono shirkadahan halkaasna lagu dayn doono sigaarkii kale ee caadiga ahaa midanoona kalifteen shirkadahan aysan soo saarin noocan producti isla markaasna halistiisu ay yar tahay laakiin dhanka kale markii ay labadan wiil arrinkan ku baraarugeen waxaa dhacday inay ayagu noqdaanba kuwii fikraddan qaadan lahaa isla markaasna soo saari lahaa noocan bararagti ee halistiisu yar tahay halkaasoona ay markan Adam iyo James bilaabeen inay markan awoodooda oo dhan isugu geeyaan sidii ay isla markaas u badbaadin lahaayeen 1 bilyan ee qof ee cabi sigaaradan halista badan ayagoona markan labadan nin aaminay inay noqon karaan badbaadiyaal haliyeeye ah laakiin dhibaatada ayaa ah in wax walba sidaas ay aaminsanaayeen aysan u dhici doonin haddaba kadib markii ay qalin jabiyeen Adam iyo James waxaa dhacday in isla markiiba ay asaasaan kambanigooda ugu gooniya kaasoona ay ugu magac dareen Bloom kambanigan uuna siday ay aaminsanaayeen badbaadin doona balaayiin qof intaas kadib taariikhdu markaa 2007 Bloom ayaa ahayd mid heshay lacag maalgelin oo gaadhaysay 400,000 taasoona waqti xaadirkan ayba si toos ugu shaqo geli karaan laakiin wax walba si sahlan kuma bilaaban doonaan oo Adam iyo James ayaa horaantiiba kuwa la kulmay caqabado dhowr ah caqabadahaas oo ugu horeeyeen in productigoodii ugu horeeyay markiiba fashilmo heer oo mid kamid ah productigoodii ku qarxo xafiiskoodii dhanka kale waxaa dhacday in markan ay suuqi soo galaan tartamayaal kale kuwaasoona ayaguna soo saareen noocan sigaar loo yaqaan e-cigaretka tartamayaashaas oo ugu horeysay kambaniga lagu magacaabo Enjoy oo waqti
waqtigaas noqday mid si weyn u fida. waxay haataba laakiin Adam iyo James ayaan halkii isku dhiibin ayagoona aaminsanaa in marun riyadoodana intaasoo sano ka soo shaqaynayeen ay rumoobi doonto. haddaba mar kale waxaa dhacday in 2009 ay haddana soo saaraan productigoodii kale kaasoona qaab ahaan marka la fiiriyo ka duwanaa dhammaan noocyadii kale ee vape asagoona noocan producti ka fududa sidoo kalena ka qurux badnaa dhammaan productyadii kale ee suuqa ku jiray. laakiin maxay kugu taalaa haddana dhibaatada ayaa in productigan uu markaan ahaaba midaan dadyogii siinaynin nicotine ku filan oo mararka qaar waxaa dhacaysaba in dadku ay isku qaataan laba nooc oo vape-tana si ay bal uga helaan nicotine ku filan midaanoona caddaynaysa in productigan Adam iyo James uusan ahayn mid shaqadiisa sidii looga baahnaa aan u qabsanaynin. waxay haataba Adam iyo James ayaa markan ku baraarugay in qaabkan aysan marnaba wax kaga bedeli doonin adduunka ayadoona productigoodan uuna marnaba noqon doonin mid ka gilgili lahaa dunida oo dhan halkaasoona ay markan go'aansadeen in wax walba ay dib soo laba bilaabaan. haddaba productigoodan xiga ayaa ka dhigan productiga ay ugu magac dareen Juul kaasoona dhabaanta ay markan awoodooda dhan isugu geeyeen sidii ay midkan uga dhigi lahayn e-cigareetka ugu wanaagsan dunida halka sidoo kalena ay markan productigoodan ka dhigan mid leh qaab tech kaasoona si fudud loo isticmaali karo halka sidoo kale ay markan labadan nin soo daafeedeen qaab kale oo cusub kaasoona ay ku bareejeen karaan nicotinka ay dadku ka helayeen sigaarka halkaasoona ay ugu dambeyntii heleen qaab kale oo hor leh qaabkaasayna productigoodan Juul kaga dhigayaanba mid leh nicotin ka badan kii ku jiray sigaarka halka sidoo kalena ay nicotinkaas ka dhigayaan mid sida sigaarka gubeynin doonta sidoo kalena leh dhadhanno kala duwan sida dhadhanka maangaha iyo weliba dhadhanno kaleba halkaasoona Adam iyo James ay markan noqdeenba kuwa gebi ahaan dib u habeen ku sameeyeyba caalamkii sigaarka ayadoona kadib markii ay dadyuga si fiican u barteen Juul ayba aamineen in Juul ayba tahay mid 100% ka wanaagsan sigaarkii la yaqaanay maadaama aysan ayadu ka koobnayn wax tubaaka iyo wax la mid ah taasoona qofka ku keeni karta kansar iyo weliba cudurrada halista badan. waxay haataba laakiin mid aysan dadyo badan waqtigaas ku baraarugsaneyn ayaa ah in nicotinkan ku jira Juul uu asna dhankiisa yahay mid ka awood badan sidoo kalena ka qabateen xunba tubaakada ku jirta sigaarka. dhanka kale Juul ayaa dhankeeda ahayd mid veefteeda u diyaarsan qaab allaala qaabkii ay dadyo badan u soo jeedan lahayd ayagoona sameynayaba noocyo badan oo kala duwan sidoo kalena kala dhadhana heer waqtigaas Juul lagu tilmaamaba abasha iyo sigareetka sababo la xiriira soo bandhigidooda qurux badan ay soo bandhigeen productigoodan halka Adam iyo James ay markan ahayn kuwa isku diyaariyeyba soo bandhigidoodii tooska ahayd ay soo bandhigi lahayn caalamka oo dhan productigoodan ay aaminsanaa inuu badbaadin doono 1 bilyan oo qof ayadoona arrin kale waalida uu ahaa in Juul xaysiintooda uusan waqtigaas ahayn mid xadidanba sida ku dhacdo oo kale shirkadaha sigaarada oo shirkadaha sigaarada lama ogola inay si public u xaysiistaan productigoodan maadaama uu productigoodan ka kooban yahay tubaako laakiin tan kale Juul ayaa ahayd mid markeedan meel walba ku xaysiisan karta productigadan ayadoona uusan qabanaynin haba yaraatee wax sharci ah maadaama uusan productigoodan ka koobnayn wax tubaaka ah halkaasoona ay markiiba Adam iyo James ku soo shaqeeyeen ninkan oo lagu magacaabay Richard Mumby ninkan oo isla markaas noqon doona xaysiiyooda laakiin waa meeshan meesha ay wax walba ka qaldoomi doonaan. haddaba saan wada ognahay Juul ayaa salaanteeda loo aasaasay dadka caba sigaarka si bal sigaarka loogu joojiyo ayadoona booska sigaarka loogu bedelayo vapeta laakiin suuqgeeyayaashii Juul ayaa kuwa gebi ahaanba arrinkiis ka indha tiray ayagoona markiiba ay bilaabeen in vapeta ay ka dhigaan shay iska caadiya ayagoona dhanka kale bilaabeen markiiba ay gacanta u geliyaan productigoodii dadka yaryar ee ardayda ah sidoo kalena aan haba yaraatee wax shaqaa ku lahayn cabidda sigaarka midanoona markiiba attention badan soo jeedisay iyo in dadyo badan ayba bartaan productigan Juul haba u badnaadeen dadyogaas dhallinyaradii ciyaar iskuulka ahayd halka dhanka kalena ayba bilaabeen in goobaha dhallinyaradu ay isugu timaado ay isla markaas ku qaybiyaan productigoodan weliba si free ah si isla markaas uu qofkii mar tijaabiyo uu la qabatay productigan heer ugu dambeyntii ayba Juul gaadhay in vapetoodana xitaa ku xaysiistaan janaaladii carruurta sida janaalada kale ah Nickelodeon iyo weliba Cartoon Network janaaladan oo isla markaas ah janaalada ay carruurta aadka u yaryar ay daawadaan halka productigoodan aysan sidoo kale ku xadidin wax da'a haddaba Juul ayaa markan ahayd mid warkooda u cad yahay warkaasoona ah sidii ay markan u samayn lahaayeen bajiil cusub oo smokeris ah iska ilow dadkii hore ee cabi jiray sigaarada laakiin markan wax walba waa la iskaga daba imaan doonaa. waxay haataba saaxiibayaal haddii aad ka hesheen muuqaalada noocan oo kale ah fadlan xuraha inaad nagu soo biirto sidoo kalena channelka subscribe saarato si aad isla markaas u hesho muuqaaladan aadka u xiisaha badan ee aan kusoo gudbino channelkan aanu gudagalno muuqaalkeennan. haddaba kadib markii ay Juul si toos u soo daafeedantay 2016 waxaa dhacday in markiiba uu saleskoodii hawada isku shareero halka dhanka kalena ay waqtigaas bilaabeen CEO-gii ay ka dejiyaan ninkii lagu magacaabayay James ugu dambeyntiina markii la gaadhay bilowgii 2017 Juul ayaaba ahayd mid meel walba qabsata heer dadyuga caanka mid walba lagu arkay asagoo isticmaalaya Juul midanoona Juul marba marka si dambaysa kasii dhigaysay inay hawada isku sii shareerto ayadoona isla markaas suuqgeyn aad u weyn yeelatay halkaasoona ay markan bilaabeen inay isku sii fidiyaan waddanno kale halka dhanka kalena ay soo shaqgeliyeen kumanaan shaqaale oo cusub kuwaasoona Juul ka sii dhigaya mid sii weynaata ugu dambeyntiina isla sanadkaas dhammaadkiisa Juul ayaaba ahayd mid noqota kambanigii ugu degdega badnaa ee gaadha valuation gaadhaya $10 bilyan
haddaba waxay wax walba sidaas ku sii socdaan isla bilooyin gudaheed haddana waxaa dhacday in dadyoga ay soo boostigareeyaan dhinaca madow ee kambanigan iyo weliba brodaktigiisana halista badankiisa weliba muddo aad u kooban ayadoona dhallinyaradii ay markan bilaabeen inay isgartaan sidoo kalena ay ku baraarugaan sida uu brodaktigan u yahay mid kasii dhigayaba addicted kaba daran midkii sigaarka. Started having the cravings more often. I am definitely so addicted to vaping. And it wasn't this feeling of, oh, I really want nicotine. We need it. I became so addicted to vaping that it really took over my everything. I was even a gymnast, and I remember not having enough energy to do the things I needed to do. ayadoona markiiba ay carruur badan la daalaadhaceen nikotiinkii aadka u xadiga badnaa ee ku jiray Juul kaasoona la sheegay in dhibaato badan uu keeni karo qofka weliba si maskaxiyan ah ayadoona dhibaatada midaasoo dhan kasii daran ay tahay sida aan si fudud iskaga dhaafi karin kadib markaad la qabatinto brodaktigan. haddaba kadib markii ay Juul dareentay dhibaatada waalida ay geysatay sidoo kalena ay u geysatay dhallinyarada aadka u yaryar waxaa dhacday in markan ay qorshe kale la timaado qorshahaasona ah in ardaydii ay iskuuladooda ugu tagaan si ay isla markaas uga digaan cabidda vapeta laakiin xaqiiqada madow ayaa ahayd in ujeedadooda uusan ahayn ba inay uga digaan balse ay ka wadeen xasuusin iyo weliba suuqgeyn kale oo hor leh sababtoo ah maxaad ku taqaanaa ilmo wax looga digay sidoo kalena la yidhi ha samaynin. dhanka kale Juul ayaa markan bilowday in markan ay dadka isticmaalaya brodaktigoodan ay xadidaan kadib bareshar badan oo la saaray laakiin waa waqtima waa maray dhaawici inta ugu badnayd ay geysteen waxyaataba laakiin waa markii ay Juul la kulantay dhibaatadii saxda ahayd dhibaatadaasuna wax walba dhanka kale u bedeli doonta dhibaatadaasuna ahayd inay isqabtaan waaxda caafimaadka ee FDA waaxdanuna isla markaas miiska u soo saartay Juul qodobo dhowra qodobadaasuna looga baahan yahay in Juul ay ku caddaysay in brodaktigoodan uusan wax caafimaad darraa keenaynin sababtoo ah waqti xaadirkan Juul isticmaalayaasheeda ayaaba gaadhay malaayiin qof kuwaasoona u badan dhallinyaro weliba ciyaal iskuul ah sidoo kale waqtigaas in ka badan 3 milyan oo arday ayaa ah kuwa isticmaalaya brodaktigan Juul. haddaba dhanka kale waqti xadarkan ay Juul ahayd mid la kulmaysay caqabado dhowra waxaa markan dhacday in Juul ay soo jiitaan indhaha kambaniga sigaara lagu magacaabo Marlboro kambanigan ah kambaniga sigaariga ugu weyn dunida sababtuna ay ahayd in kadib markii ay suuqyadii la wareegeen Juul iyo weliba kambaniyadii kale ee Vapetu uu kambanigan yahaaba mid waqtigaas dareemay suuq la'aan iyo in bari kamaal ayba dhici karta inay dhul ka galaan haddaba maadaama lagu jiray waqtigii Vapeta waxaa dhacday in kambanigan uuba ka cabsaday in sigaaradii hawada laga saaro sidoo kalena ay meel bannaan ku soo dhacaan isla markaasna loo baahan yahay in si degdeg ah ula jaanqaadaan casriga cusub ayadoona kale marka la eegay labada badan ugu jirtay inay iskaalmaystaan oo Juul ayaa markeedan ahayd mid la kulmaysay caqabado dhowra halka kambaniga sigaarna uu ahaa mid tabayin ula jaanqaada casriga cusub iyo sida uu isla markaas u yeelan lahaa macaamiil cusub waxyaataba taariikhda markii dhamaadkii 2018 waxaa dhacday inay kulmaan asaasayaashii labadan kambani halkaasoo ay markiiba heshiis ku gaadheen heshiiskaasoo ah in Marlboro ay si toos ah loo wareegayso 35% isteega Juul isteegaasoo ay kula wareegayaan qiimo gaadhay 12.8 bilyan oo dollar midaanoona qiimihii Juul markan ka dhigtay kambani valuationkiisu uu gaadhay 38 bilyan oo dollar halka dhanka kalena asaasayaashii Juul Adam iyo James ay markan ku noqdeen rag bilyaneer ah ugu dambeyntiina Juul tii la aaminsanaa in shirkadaha tubaakada ay dhulka galin doonto sidoo kalena laga rajo qabay inay badbaadin doonto balaayiinta qof ee cabbi sigaarka ayadii ayaaba markan ku dambeysay mid hoos timaada shirkadii sigaarka halkaasoona ay markan riyadii si toos ugu dhamaatay waxyaataba laakiin waa markan ay wax walba dhulka gali doonaan haddaba markan waxaa dhacday in waaxdii FDA ay markan soo daafeedaan dokumentiyo dhammaystiran oo ku aadan Juul iyo weliba xaqiiqadooda dhabta ah iyo in kambanigan uu yahay mid targetgaraysanaya dadka aan cabin sigaarka iyo weliba mid ugu daran ah inaysan xaqiijin waxa ay Vapetooda kaga duwan tahay sigaarka marka ay timaado dhanka caafimaadka halka dhanka kalena ayba markan soo badanayeen dhalinyartii ay saameynaysay cabidda Vapetoodan midaanoona markiiba ka liftay in lagu kaco kambaniga Juul halkiina ay isqabsadeen mudaharaad iyo isdaba jooga ugu dambeyntiina Juul ayaa markan la kulantay kumanaan maxkamadayn iyo weliba eedeymo isdaba jooga midaanoona ku qasabtay inay bixiyaan lacag gaadhay 3 bilyan oo dollar halkaasoona qiimaha kambanigan hoos ugu soo dhacay ku dhawaad 450 milyan oo kaliya ku dhawaad khasaare gaadhay 95% halka dhanka kalena ay hoos u dhacaas ka qayb qaateen kambaniyo kale oo Vape kuwaasoona adeegsanaya isla xeeladii Juul oo kale waxyaataba mid aan marnaba la ilaawi karin ayaa ah saamaynta aadka u foosha xun oo reebay kambanigan asagoona isla markaas ka dhigaya inuu yahay mid wanaagsan. You, sir, are an example to me of the worst of the Bay Area. You don't ask for permission, you ask for forgiveness. You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people. halkaasoona kambanigan Juul uba noqday asaasaha malaayiin qof oo ismo karisa kuwaasoona aan horey wax shaqo ugu lahayn cabidda isla markaasna bilaabay un kadib markii uu kambaniga soo shaabaxay halka maanta marka la jooganayo marka si dambaysa tiradaasi kor sii socoto halka dhanka kalena ayba Juul noqotay midii shirkadaha sigaarka u qabatay mashruuc ay sanado badan ku guuldaraysanayeen mashruucaasuna ah in dhalinyarada aad ku yaryara ka dhigaan jiil ismo karisa haddaba maxay kula tahay sheekadan waalida ee ku saabsan Vapeta iyo weliba Juul
sidoo kale haddii aad rabto sheeko kale oo business oo ka sii xiiso badan midaan haddaba ka wardoon muuqaalkii kan ka horreeyay aan uga hadlaynay taariikhda xiisaha badan ee Adidas iyo Puma haddaba haddii aadan hore daawan muuqaalkaas fadlan ku dhufo thumbnail-ka shaashada kaaga muuqanaya halkaas ayaa noo ballanaa